السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وإن سلامية وحاني رجينا وقتي وناكسن ميل والبا جوجتان اي وقتي والبا ايدين تهيبا وحاني كذا رجينا إلهي عافيمات عمري دير ما شاء الله سيدا ايقا برتين ورو البابا إنا إذن لو داقو وحي aan isleeyahay way la gudboon yihiin ama bulshada wax way ka faa'iidi karaan marka maanta waxaan jeclaystay ma sha Allah inaan idin wadaago maxaa la dhahay wax yar igaraan noqdo maanta waxaan jeclaystay inaan guud ahaan idin dul maro siyaabaha waxyaabaha dhaco nowadays oo caruurta la dhaho jirooyinka lagu soo sheego oo la dhaho ku soo badanayaan guud ahaan caruurta western world ku nool siiba caruurta ajnabiga ee Soomaalida ka mid tahay jirooyinkaas ay ka mid yihiin oo dhinac walba ilmaha dhibaato uga keeni karo sida maskaxda emotionka physicalka oo jir ahaan ah oo siyaabo kale u kala maaragtay u kala dhaawaco ilmaha so kuwa qaar way badan yihiin laakiin halkan laguma soo koobi karo balse waxaan isku dayaa insha Allah hadii Allah awood la idmo in ay idin dul maro dhowr ama mid marka kuwa aad popularka u ah oo aad caanka u ah waxa weeye autismka iyo autismka iyo ADHD-ga dyslexia iyo kuwa kale aad u fara badan marka ani maanta waxaan jeclaystay inaan idin dul maro insha Allah ADHD-ga oo ah ilmaha ADHD-ga qabo waxa lagu ogaadaa inay yihiin ilmo oo foojignaan lahayn foojignaantooda aad u yar tahay oo wax u fiirsanin soo foojignaan la'aantooda aad u badan waxqabadkooda aad u badan aad waxqabad badan yihiin waa energy badan yihiin waa active way ordayaan waxun bay qabanayaan maba daalaanba nasiib daro way wareersan yihiin like jahada ka wareersan because energy-gooda very high ah waxay ismoodeen wax walba inay samayn karaan waqti kooban gudihiis marka sidaas darteed wareer badan ay dareemayaan siyaabaha badanaa ilmaha jiradaas qabo lagu ogaado waxa weeye waa ilmo qalqaali ah oo aad u fudud oo najecel maaragtay inuu dhex galo ama markaa ku sugi karno hadalka dhex galaayo oo sabar badan lahayn oo meel uu ka degdegsan ilmo ilmo dhaqdhaqaaqooda aad u badan yahay weeye dhaqdhaqaaq badan yihiin ma fariisanayaan aad ma fariistaan way just were too active wax diirada toos uma saari karaan oo ma aragtay wax focus ah ma lahan oo ma aragtay inay waxaan waqti badan ma ku sii focus gareyn karaan markay jiradaas qabaan ilmaha focuskooda aad u yar marka waxa dhahday amal focus علشان ديرada wax ma saari karaan waqti badan hatta mararka qaar wax yar oo kooban ma saari karaan ilaa ama la cadaadiyo ama la xiiso galiyo oo ma aragtay dhiirigelin badan la tuso iyo waxaas iyo waxay ku xirantaa qofka ilmaha la macaamiltamaayo maxaa kaloo jiro maxaa la dhahay waxaa kaleeto aad iyo aad looga dareemaa ilmahaas ADHD-ga qabo in ilma aan nasanin aan deganeen xasiloon daro ma xasilna no matter how much ma aragtay la hadlaysay ama waqtigiisa ku nastaan generally waa ilma aan xasilneen oo deganeen ilmahaas qorshahooda uu iskaga dhex qasan yahay qorshe la'aan badanaa way qorshe ilmaha badanaa oo jiradaas qamin badanaa waxooda way qorsheysan karaan way og yihiin oo kaleeto ilmo it depends da'da waxay ku xiran tahay da'da ilmahaas hadduu ilmo weyn oo wax fahmaya yahay camal wuu og yahay subaxii iskuula laga rabaa markuu soo laabto markay soo laabtaan dharka inay iska bedelaan isdiyaariyaan kadib
madraso ama other activities plan for the day they know maxay tahay plaankooda si fiican ay ula socdaan guud ahaan marka taasi waa mid marka nasiib wanaag waxay ku fiican tahay ma ahan wax oo ma aragtay oo weligood ay kusii jiri karaan haddii oo garab laga siiyo oo ilaahayna noo saamaxo lala dadaalana dadka ku haboon oo ma aragtay ku takhasusay waxaana wax soo saari karana lala xiriiro waa wax ma aragtay wax laga qaban karo ilaahay idinkiis marka waxyaabaha adiga lagaaga baahan yahay ka waarid ahaan waa maxay waarid ahaan adiga waxa lagaaga baahan yahay ina aad iyo aad waa ogahay mid lagu sheegayo ama lagu la dardaarmay ma ahan ina ilmahaaga u dadaashid balse tani waa xusuusin oo ah ma aragtay waxyaabaha aad sameynaysid iyo qaabka u sameynaysid oo kale lagu soo xasuusinayo waxa ugu horeeya waxa waaye inaad wax qaab raac ah ilmahaas u samaysid ilmahaas waxaas qabo waa inay haystaan wax cad oo qaabka loo raacana u cad yahay ayna og yihiin ayna fahansan yihiin qorshe joogto ahna waa inay u samaysid qorshahaas joogtada ah oo ah qorshe maalinle inuu noqdo maalintii oo dhan waxa ilmahaas sameynaa markuu soo kaco markay soo kacdo ilaa markay seexanayaan oo og yihiin una caddahay waxay sameynayaan iyo waqtiga laga rabo waxay intay qaadanayso waa inaa wax u abaabushid waxaas u abaabulaysid waa inay noqdaan wax asaga ama iyada ama ilmahaas ka soo bixi karaan oo awoodooda iyo aqoontoodaba ma aragtay ay dhan tahay oo ahayn ma aragtay wax adiga aad iska dejinaysid oo ah calashaan hamigaaga xoog hada u saraysiisid aad dhahdid waxaana ilmaha rabaa inuu sameeyo waqti aad u kooban marka wax aqli gal ma noqonayaan marka waxa loo baahan yahay inuu waxa abaabulaysid wax macquul yahay wax ku haboon yahay wax ilmahaaga ka soo bixi karaan yahay because ilmahaaga adaa garanaysid waxay ka soo bixi karaan waxa kale ilmahaaga oo dhan isku wada mid ma ahan qof basiba wax u bartaa qof learning style kooda waa different insha Allah maalin gooni ah waa si toos ah oo aan idin kala dhigi doonaa learning style-lada iyo sida u kala fahmi kartid insha Allah video kala gooni ah uga soo hadli doonaa hadii baha wada la idmo marka maxaa la dhahay qorshahaas ilmaha inay u caddahay waxa uu abaabulaysid waxa marka abaabushid adigoo abuurtid inaad kadib ilmaha kala tashatid oo dhahdid because waa ogtahay ilmahan inay baahi gooni ah leeyihiin marka inay ilmana yihiin ilmo oo dhan waa isku mid caruurta meel walba adduunka joogaan waxay ku bartaan wax inay wax walba taabtaan wax walba fiiriyaan wax walba ogaadaan because excitement xiisaha ma fahmaysaa marka ha ka rajeyn sidii anagoo kale dad waaweyn inay fariistaan si degan wax u dhageystaan waa laga rajeyn karaa taas qalad ma aha laakiinse waa ilmo ogow adoo ka rajeynayso wixii tababar iyo training iyo wacyigelin iyo warsheeg ku dabahaysid haddana isla markii waxaa lagaaga baahan yahay inaad maskaxdaada markastoo canaananaysid ama wax u sheegaysid aad la socodsiisid in maxaa la dhahay caruur yihiin caruurna mar walbo iyo goor walbo ma aragtay aqligooda boqolkiiba boqol ma buuxa sidaas darteed anaga noo laga baahan yahay inaan hogaamino la talino wixii xun wax fiican u sheegno balse sidaas darteed ma aha inaan habeenii maalin gacanta ka wadno oo qaadada afka u galino macnaheeda ah cuntada afka loo galgaliyo ilmo waaweyn oo kale tusaale ahaan ilmaha waa inaa fursad siina ay ku fakari karaan wax ku qabsan karaan laakiin kow ina anaka tusaale siina example saas oo kale saas ka bacdina qofkan waa qof jiro ra'yigiisa oo xor u ah fakarkiisa xor u ah aqoontiisa iyo kartidiisana xor u ah marka adi wax u abaabushid waxaa lagaaga baahan yahay marka ilmahaas markii waxa abaabusho kadib in aad xadidi kartid carqaladaha imaan karo oo ama carqaladaha ilmahaas uu leeyahay og tahay ina xadidid sababtoo ah wixii aad rabtid inaad ka dhaadhicisid ama fahansiisid ama aad bartid ma bari karaysid hadday carqalado badan meesha joogaan ama yaalaan tusaale ahaan haddii TV-ga daaran yahay oo kale aad doonaysid inaad quraan xifdisiisid ama xadiis bartid
ama iskuulka homework kala shaqaysid haddii aad rabtid intaasi in la mid aad oo sameynaysid ilmo kale walaalo ee meesha joogaan ilmahaasna uu qabo ADHD way ku adkaanaysaa ilmahaas kale inuu focus gareeyo waxaa u baahan tahay meel gooni ah inaad la tagtid oo ilmahaas waqti qaas la qaadan kartid oo waxa aad rabtid inaad bartid ama ka dhaadhicisid si aad uga dhaadhicisid waxaa kaloo aad muhiim u ah inaad waqtiga ku badinin waqtigan aad ugu yareenin labadaba adiga noqotid qof dhaxaad ah waa inaad xadidid carqaladooyinka oo guud ahaan sida iPad du meesha yaalo TV-ga telefoonka naftaada teleefankaaga naftiisa waa inuu kula joogin oo qol kale u yaalo teleefanka aad maxeeheeto ama damisid ama codka ka xirtid sababtoo ah hadduu agtaada yaalo oo qof muhiim ama sugaysa ama wax kaleeto oo lagu soo waxa laga yaabaa ilmihii oo maxeeheeto dhibaatadaas qaba ADHD-ga maxeeheeto aad ka yara mashquulshid markaa ka mashquulshidna asoo awalba focuska ilmahaas awalba focuskooda xumaa haddii aad adigana ma aragtay aad distraction ku noqotid alshan qof oo soo diiradda wax saari karin aad tahay marka waxaa ka halaabaya dabeecadda asoo awal dhibaato qaba dabeecadda ka sii halaabayso marka I'm not sure in it's fiican ka arkaysiin soo inta heegi inta ka sii daray yeah maybe inta yeah marka maxal dhahay marka carqaladahaas oo kale aad iyo aad muhiim u tahay inay intaada bilaabin casharka ama wax u sheega inaad meesha ka remove garaysid waxa lagaaga baahan yahay inaad aad u dhiirigelin badan waxa ilmaha haddii qaldaan oo kale ama fahmi waayaan oo kale inaad dhihin magacyo ugu yeerin anaka waxa qatar kuna ina ilmaha magacyo ugu yeerno oo ina ilmaha kale la barbar dhigno labadaas waliga ha sameyn ilmaha ama baahi gooni ha qabaan ama baahi gooni qabin caruur waa caruur mar walbo ma hayna ilmo kale ku barbar dhigtid dadka ilaahay isku mid kama dhigin marka waxa lagaaga baahan yahay inaad waliga marna isku barbar dhigin ilmo hebel eeg ama heblaayo eeg wixii uu sameeyay amala dhaxdid because adintaas leedahay ilmahan dhiirigeliyo oo wixii ha sameeyaan aamin ilmahaas waxay ka qaadayaan jab badan walaac iyo ma aragtay walwal badan tartan iyo masayr badan iyo waxyaabo badan oo loo baahneen marka waliga qofna qof ha u barbar dhigin ilmahaaga mar walba dheh kaliga ay tahay shakhsiya tahay maxay ahayd maanta dhib ma lahan maada maxay ahayd sidii waa dadaashay waa soo dhaweysay good job shaqo fiican aan qabatay waa mahadsan tahay maanta si fiican wax u qabatay bari waxaan tartiib saxno sidii laga rabay waa soo dhaweynay laakiin wali ma gaarin adoo dhihin waa qaldan tahay ama waa saxan tahay siyaabo kale ta ugu sheegaysa ma fahantay adoo ka niyad jabinin waxa kale muhiim ah ilmahaas qaba ADHD-ga in aad maxay ahayto inaad mar walba ku dhiirigelisid jimicsiga sababtoo ah ilmahan waa ilmo energy-gooda very high yahay energy-gooda aad u kacsan yahay marka raal noqda gaariga wadaya baa teleefankana meeshu soo dhacay so sorry I'm really sorry marka maxaa la dhahayaa ilmaha ogow inay leeyihiin energy aad u badan energy-gooda aad u badan yahay ADHD-ga ilmaha qabo energy-gooda marka waa inaad ka faa'iideysatid adiga oo soo daalisid ha ka rajeynay ilmo ADHD qabo inaad teleefan qabsatid oo iska sheekaysid saaxiibada la sheekaysata ayakana ku fariistaan waa inaad daalisid adoo daalisa xataa marka qaar waxa laga yaabaa wali inay energy-gooda high yahay marka waxa muhiim ah inaad maxay ahayd qorsho gooni u haysid maalinla ah oo aad energy-ga ilmahaas ku dilaysid ama energy-ga si kale u isticmaalaysid marka qaar hadaa rabtid inaad wax bartid oo kale hadaa doonaysid si gooni inaad wax u bartid oo kale waxa laga rabaa ilmahaas energy-giisa inaad isticmaashid oo waxa practical ka dhigtid ilmahan ilmo fariisanayo ma ahan
so waxaa lagaaga baahan yahay waxbarashadaas aad baraysid plankaaga ku darsatid si active ah oo energy ah oo la booboodayo oo la hadlayo oo sidii anaashiid oo kale loo heesayo ilmihii wixii dhaqso uu galaya wixii uu ka dhaadhacayaa uu fahmayaa balse haddaa ka rajaynaysid sida ilmihii kaleeto caadiga ahaa oo kale inaad maxay ahayto uu si degan oo tartiib wax u fahmo u barto way adkaanaysaa labadiina waa isku daalaysiin frustration as kala qaadaysiin taasna ma ahan mid adiga rabtid waxaa kaloo lagaaga baahan yahay inaad joogtaysid ilmahaas hurdadiisa joogtayntaas oo ah ugu yaraan waa inuu ilmahaas seexdo 11 saacadood caruurta waa inay 11 saacadood maalintii seexdaan waayo hurdada ilmaha waxay siisaa in ay lahaadaan maxaa la dhahay wax inay diiradda saari karaan because annaka bini aadan oo dhan u baahan yar iyo weyn wuxuu noqonayaa ilmo xoogaa iska xasilsan hurdo fiican markay haystaan kabacdina wax diiradda saari karo wixii markaas looga baahan yahay ama waqti yar ama waqti dheer inay wax diiradda saaraan marka hurdadaas adaa xisaabinaysa ilmahaaga waqtiga iskuulka ka imaado waqtiga dugsiga looga baahan yahay waqtiga activity kale hadday tagaan ka imaadaan iyo waqtiga looga baahan yahay inay hurdada ka soo kacaan waqtiga kugu qaadanaysa iskuulka inaad ku tagtid ama meelo kale haddaa geynaysid subaxii adiga waa inaad calculation samaysid isku dardartid haddana kala jartid kabacdi aad soo saartid 11 saacadood oo ilmahaas looga baahan yahay inay seexdaan 11kaas saacadood aad saacadda laga rabo inuu seexanayo ee ku caddahay ku go'an tahay ilmahan ay og yihiin ma ahan wax adi aad jeebkaaga ku haysatid waa inaad usii sheegtid oo dhahda haye waqtigaas habeen walba waa seexanaysaa insha allah waqtigaas habeen walbana waxaa lagaaga baahan yahay inaad soo kacdid marka waxaad joogteynaysaa ilmaha hurdadooda oo aad muhiim u ah waxaa kaloo lagaaga baahan yahay inaa ilmahaas caburinin oo fursad siisid ee ku hadlaan ee ku boodboodaan ee ku qayliyaan ee ku heesaan ee ku cararaan marka fursadaas waxaa lagaaga baahan yahay in adiga ka fakartid meesha ku habboon oo ilmahaas ku carari karo waa sida beeraha oo kala geyn kartaa inuu cararo maanta oo dhan si carar soo carar ma aragtay ilmaha inuu hadlo oo kale hadduu rabo guriga qolka mid u hagaaji microphone oo bebenee oo codka laga duubi karo gay haddaa ilmaha caburisid ma fiicna because waxaas ku caburisid aadna way ku caburinayaan ma fahante marka waxaa aad muhiim u ah in maxay ahayd ay og yihiin xorna u yihiin inay ka hadli karaan waxa ay ka dhibaayo inay ku sheegi karaan waxa ay ka jecel yihiin adigana abaabulka ugu dari kartid iyo qorshaha si oo maxay ahayd waxa la qabatid ee ugu noqonin wax carqalad ah oo ama ilmahaaga dhibsanayo waa inaad waxaa kaloo qasab ah in markaa u ogolaatid inay maxay ahayd orordi karaan qaylin karaan hadli karaan si xor ah aadan caburinaynin marka waxaa kaloo lagaaga baahan yahay ina aad iyo aad u dhiirigelisid ilmahaaga inay wax qabsan karaan xataa kuwa niidka lah baahida goonida lah inay kaligood wax qabsan karaan inay noqon karaan qof xor ah oo isku filan oo wixii basic oo qof looga baahan yahay bini aadan uu qabsan karo ama ay qabsan karto waa inay si xor u fakari karaan oo fakarkaas ayaga wax ka soo go'ay yahay oo ahayn fakar adiga influence ku leedahay ina adiga aad ma aragtay aad maxay ahayd ka ra'yi qaateen sababtoo ah markaas wuxuu noqonaa qof mar walba dadka kale ra'yi ka qaato adiga tusaale uu ka qaadan karaa ilmaha saa u fakaraysa caadi ani saana u maleeyaa waxaan saana ila tahay I think is this way waa dhihi kartaa I think is this way I think you should do this but it's your choice hadaad dhahdid amal saa waxay la tahay saan qabo ama saan wax u qabo laakiinse adaa iskale waxaan adaa xor ah waxaa rabta sameey haddaa dhahda camal tusaale camal
oo wax adi wax ilmaha oo dhaawac iyo dhibaato u geenaynina ogtahan ka hadlooya ma ahan wax walbo markaas ilmaha wuxuu ogaanaa inuu qof xor yahay inuu qof ma aragtay la qiimeynayo ra'yigiisa iyo aqligiisa iyo bini'aadanimadiisa markaas adna waliga uu qiimeynaya ma fahantay waxa dhahdid uu qiimeynaya ilmaha fakarkiisana uu dhisayaa mar walba waxa aad iyo aad muhiim u ah sidaas oo kale inaad mar walba isku daydid ama inaad dalici kartid sabarkooda inay wax sugi karaan inay sabar leeyihiin in ilmahaas ma aragtay mar walba ma aragtay yihiin ilmo oo ilaahay ku xiran oo samraayo oo wixii looga baahan yahay sameyn karo marka sugi karaan wax walba looga baahan yahay bismillah marka waxa adi lagaaga baahan yahay waa ka waarid ahaan in maxay ahayd si oo waxa lagaaga baahan yahay adi si waarid ahaan inaad maxay ahayd u su'aashid su'aalo u weydiisid camal su'aalo oo aqliga iyo nafta kobcinayo oo dhahaysid waxaan haday dhacaan maxaad sameyn lahayd arintaas oo kale haday soo baxdo halkee aadi lahayd marka ilmihii wuxuu noqonayaa ilmo ka fakaro waxa dhici karo camal xaalad aad leedahay xaaladaas oo kale haday dhacdo maxaa sameyn lahayd halkee tagi lahayd see u qaban lahayd so waxaad kobcinaysaa fakarka qofka waxaa kobcinaysaa aragtida qof ilmaha yar waxaa kobcinaysaa sidii xaaladda ku timaada degdeg ah waxay ka qaban karaan oo ma aragtay marka taas waa muhiim inaa okay I'm just checking a parking space marka taas waxay muhiim tahay waxyaabahaas oo dhan oo kobcinta fakarka xornimada isku filnaanshaha iyo wixii kale la mid ah marka anaka ka waarid ahaan waajibkeena hada ka soo baxna iyo wixii Ilaahay noogu talagalay maadaama ilmaha amaano yihiin Ilaahay insha Allah wuuna garab galaya because Ilaahay wuxuu dhahay dadaala ana waa idin caawinaya marka inta ugu muhiimsan waa intaas waxa qaban kartid ilmaha marka maanta video wuxuu ku saabsanaa waxa adiga qaban kartid waxa ka horeeya waxa ilmaha dareemaya ilmaha ADHD ga qabo waxay dareemayaan waa ka soo hadlay waxa laga arkayo anaka ama dadka la shaqeeya ilmaha sida iskoolaadka oo kale iyo macallimiinta dugsiga oo kale iyo dadkii kale oo ilmaha haayo ee ka arki karaan ama ka dareemi karaan iyo waxa anaka aan ka qaban karno intii oo awoodeena ah iyo wax kale ugu muhiimsan waxaas dhan waxa weeye in aad u tagtid dhakhtarkaaga ama dadka ma aragtay iskoolka oo kale taa dhahdid waxaasan ku arkay ilmahayga waxaasan uga shakisanahay waxaan jeclaan lahaa inay ii baartaan oo hubisaan ilmaha waxa uga shakisanahay in ay jiraan iyo inay jirin marka taas muhiim ah waxa ugu muhiimsan weeye mar walba waa inaad la tashatid macalinka wuxuu ilmaha soo u fakaray ilmaha sidee la tahay iyo ra'yigaaga isku kabsatid ka bacdina dhakhtarka ballan ka samaysatid adoo kaliga ah ilmaha kula soconin because ilmaha badana ma jeclo ayaga hortooda in wax laga sheego marka ilma dhakhtarka la sii hadal adoo la sii hadashay oo ilmahan afaarihiisa oo dhan gacanta ka saartay maxaa leedahay maalin kale waa ku keenay ilmaha badana ayaga ku dhahay keen waa fiirina oo kale so markaas ka bacdina waxa sameynaysaa ilmi dhakhtarkii hore u og informationkii maybe waxa lagu diraa dadka ku haboon specialist oo soo baarayo waxaan wax ka jiraan iyo in kale marka adiga waxa laga rabaa markaas aad sameynaysid in aad maxay ahato aad tahay qof neutral qof dhexdhexaad ah oo maxay ahato oo because dadkan expert ka ku ah waxaan ama aqoonta iyo khibradda u leh ayaga ku soo sheegayo waxaan wax ka jiraan iyo in kale wax ka shakisane shaki yaqiina ka fiicnaa la dhahay ma ahan inaad ka cabsatid ama ka shakisid waa la soo baaraa waa la soo ogaana haddii la soo ogaadana waxa danta ugu jirta ilmahaas waxaa weeye inay helaan gacanta iyo garabka ugu muhiimsan ee u baahan yihiin xilliyada iskoolaadka ay joogaan
ood adiga la joogin xiliyada guriga ay joogaana adiga iyo waalidka kale oo ilmaha ka mas'uul ah iyo dadka kale oo ka mas'uul ah insha Allah waa ina inta qaban kartiin qabatiin inta idin soo sheegay in kale oo ka badan jiro insha Allah waa soo badin doona videoyaasha waana ku mahadsantihiin waalidiintiina oo emailada ii soo direen iyo telefoonada oo iga codsaday in arimahaas ka hadlo insha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin daawasho wanaagsan fadlan hadii aad ka heshay ama wax ka faa'iiday la sii wadaag dadka kale ama dad kale isleedahay wax way ka faa'iidi karaan adigoo aad iyo aad u mahadsan fadlan like nasaar haka iloobin like yeah so insha Allah waa mahadsantihiin walaalayaal waa inoo mar kale hadii eebaha wada leh idmo oo xiisa badan bye bye see you later my friends السلام عليكم ورحمة الله وبركاته